بسم الله الرحمن الرحيم مقعي waxaa la yiraahdaa Baazi Xaaji Busiri oo ah xogayaha guud ee golaha qurba joogta Soomaaliyeed Global Somali Diaspora waxaan mahad ballaaran u jeedinayaa bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Australia oo sanadkan martigeliyay shirkii golaha qurba joogta Soomaaliyeed waana markii ugu horeeyay oo dalka Australia lagu dhigo waxayna ku timid waqti fiican oo aad loogu baahnaa hadduu eeba idmo runtii waxaa lagu jiraa waqti oo ay qurba joogta u baahan yihiin inay midoobaan maxaa yeelay dunida maanta way isbedeshay oo waxaa jiro shuruucdii oo yani waa la baalmaraya marka waa muhiim in qurba joogta ay midoobaan ay aqoon isweydaarsi sameeyaan oo ay kulmaan hadduu ilaahay yiraahdo insha allahu tacaala waxaan ku boorinaynaa bulshada Soomaaliyeed ee ku nool reer Australia lixda state xataa Tasmania inta yaroo ku nool inay yimaadaan hadduu ilaahay yiraahdo ay ka soo qayb galaan oo insha allahu tacaala lagu arko meesha anagana waa idin soo soconaa waxaan idin soo sidnaa si aan idinku siino waxyaabaha aan sidno waa inaad imaadaan hadduu eeba idmo insha allahu tacaala sida ogtihiin qurba joogta waxay hanti u yihiin dalka ay martida ku yihiin iyo dalka hooyaba marka shirkan waxaa lagu falanqeynayaa waxyaabo badan oo saameyn ku leh dalkeena hooyo iyo dalka aan martida ku nahay marka si hantidaas oo looga faa'iideysto waa muhiim inaan runtii dadaalkeena badino oo aan dadaalkeena wadareeno maxaa yeelay dadaalada hadda maanta jiro waa dadaal keli ah dadaalkana mar hadduu keli yahay mari dhalkiisa uu yar yahay marka waa waqtigii la gaaray inaan wadareyno dadaalkeena oo aan weelayno hadduu eeba idmo insha allah shirkana waxaa lagu falanqeyn doonaa dhibaatooyinka jira fursadaha jira iyo sidii xal loogu heli lahaa gaar ahaan dhibaatooyinka abaaraha fursadaha jira oo maalgashiga ah iyo waxyaabo kaloo badan runtii shirarka laga soo qayb galaa faa'iidooyin badan ayuu leeyahay qofka imaanaya wax buu korarsanayaa talaabo kasta qaado barakay leedahay sidaas darteed waa muhiim inaan isweheshanaa hadduu eeba idmo sida mujtamacaadka kale ama bulshooyinka kale oo hindida yahuudda Chinese-ka waa dad isweheshada runtii halkoodii baan ayaa waxaa ku wareega dhexdoodii 16 jeer 18 jeer marka waxay ku dhaqmaan halku dhagi ahaa haddaadan indhaha iska arki karina bal uun danta guud isu garab socda qofka bini aadanka waa kala aragti duwanaan karaa laakiin danta guud waxaa muhiim ah sida mujtamacaadka kale oo guusha gaaray inaan ka midowno marka waxaan leenahay hadduu eeba idmo haddaanan indhahaas ka arki karino bal uun danta guud aan isu garab socono hadduu ilaahay yiraahdo waa walaalkiin Baazi Xaaji Busiri oo idin leh jadwalkiina ku darsada shirkan ka soo qayb gala hadduu eeba idmo waa walaalkiin oo magaalada London idinkaga soo hadlayo daraadka kaliya dalkeena hooyo kuma ekeen London xitaa roobkii uu ka soo daahay hadda aragtaan waxaan joogaa Hyde Park meeshaan oo dhan cagaaray ahaan jirtay hadda waa u jeedaan waa cagaarkii dhana ka guuray brown uu noqday laakiin insha Allah tacaala berita ayaa waxaa la filanayaa roob inuu soo da'o isbuucan rooban filanaynaa bilihii hore dhan roob tuugan ku jirnay marka dadku dalal badan ay saameysay drought-ka London ayaa biyo la'aan jira xataa dadkii beeraha waraabinaya waxaa loo sheegay inay beeraha waraabinin oo ay biyaha keydiyaan marka waa walaalkiin oo idin leh waa inuu Australia Brisbane hadduu ilaahay yiraahdo iyo anagoo ku arki doono lixda isteedo laga yimid Soomaalidu meesha ku kulantay oo insha Allah tacaala barakallahu fiik Dado malis kadimide nimbati tisle dudi sunsare adunyo dako Dado malis kadimide nimbati tisle dudi sunsare adunyo dako Dawai dod boy indamade